kulan wacan oo wanaagsan mar kale asxaabteeda caawa live aniga ima jeclaysan sida muuqato sababtoo dhowr mar isku dayay inaan live soo galo layo isgoynaya tan ugu daran oo ay qabsato waxay tahay dad aan rabay inaan qadka soo geliyo oo dhibaato badan iga qabsato dadku waa soo geli waayay ee iga raali noqdaan asxaabta aan balansanayn inaan qadka soo geliyo waay maxay ahayd way ii suurtagali weyse aan direct u galo topic aan rabay inaan ka hadlo oo ku saabsaneyd xusuusta Allah u naxariistay madaxda gobolka Banaadir Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Yariisow iyo maxaa la dhahaa agaasimayaashii la shaqeynayay ee 24 May 2019 ku geeriyooday qaraxii ka dhacay gobolka Banaadir xarunta gobolka Banaadir waxyaabaha la yaab kale oo aan aniga maskaxdeeda mar walba ku soo laalaabtaan waxay tahay sababta ilaa haddeertaan aan loo helin wixii dhacay oo si dhaba aan loo helin marka laga reebo tuhunno iyo maxaa la dhahaa warar isdhaafdhaafayo oo la sheegayo in maxaa la dhahaa gabar is soo midaamisay taasoo dad badan u cuntami weyse dad badan oo ani aan ka mid ahay u cuntami weyse taas waa gooni tan labaad oo aan rabay inaan dadka Soomaaliyeed aan la wadaago waxay tahay waxaan arkay Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Yariisow xilliga uu noolaa waxaan arki jiray dad badan oo mucaarad ku ah oo maxaa la dhahaa oo lugaha haye oo u diiday inuu si habsami leh u shaqeysto run ahaantii markay uu dhintay kadibna amaan kala dhacay taasna waxaan u arkay inay ahayd Soomaalida dhimo si wanaag lagaaga sheego hadaa rabto in lagu amaana dhimo marka waxaan rabay inaan dhaho ummadda Soomaaliyeed haddii aad rabtiin qofka aad ku ogtiin qofka inuu yahay qof wanaagsan oo wanaag qabto marka hore inta uu nool yahay wanaagiisa sheeg ciladaha uu leeyahay waa sheegi kartaa qofka ilaan qof walba bini aadan cilad uu leeyahay oo dadka malaa'ig ma aha qofka cilad uu leeyahay waa la sheegi karaa ciladana ma aha qofka in xumaan looga dhigo haddii aad rabto qof inaad wax ka sheegtid oo kritikaareysid oo maxay ahayd uga sheeg in qofkaas uu issaxo ama adiga aad saxdid adigoo maxaa la dhahaa waxyaabihii aad tusaale ahaan ku sixi lahaydna aad usii sheegaysid sida qof cilad uu leeyahay meel uu qaldan yahay ama system uu haayo waxyaabaha ka qaldan inaad u sheegtid oo aad tiraahdid waxaas way kaa qaldan yihiin waxaas waa ku fiican tahay hore u soco ma ahan inaad tiraahdid qof hebel waa saan macnaha geed maanta dhan inaad hal geed inaad ku dhegnaatid oo aad tiraahdid geedkan waa in la gooyo keliya adigoo og xataa geedka hadduu qalooco rabay in la toosin karo taasoo iga maxaa la dhahaa digniin ama waa iga dardaaran waayo dadka waxaan arkay in dad xumaanta aad u jecel inay badan yihiin oo dad badan oo wanaagsan oo wax qabanaya markay arkaan ay ka hor imaanayaan waa la dhaliilaa madax waa caadi wax weyn ma ahan anigaas ay ii jeedin waa dhaliilaa madax qofka marka la dhaliilayana waa in waxaa la dhahaa xil u haaya ummadu xil u haaya oo xil u dhiibatay xilkaas ay u dhiibatay ay tahay in lagula xisaabtamo laakiin haddaad tirahdid hebelan ka kor urinaya taas waxaan u arkaa maxay ahayd waa wax xun waa wax horumar la-aanta na dhiga na lugooyo ee na dhibaateeye tan kale aan usoo laabto ee aan rabay inaan aad u ifiyo waxay tahay hal sano kadib dhimashada injineer Cabdiraxmaan Yariisow weli lama hayo dad la soo istaajiyo oo la maxkamadeeyo oo leeyahay dadkan waxaa lagu cadeeyay inay falkaas argagixisada ama falkaas dhibaatada geystay ee sababay maxaa la dhahaa dhimashada shaqaalihii meesha ka shaqeynayay gudoomiyayaalkii dadkan ayaa ka dambeeyeen oo loo haaya oo loo maxkamadeynaya maxay ahayd oo cadaaladda la horkeenaya lama hayo taasna waxayna tusaysaa in maxaa la dhahaa hay-adaheena ammaanka ay yihiin kuwo aad u liito oo kuwo aad iyo aad daciif u ah dadka Soomaalida waxay aad u dhibsadeen in la yiraahdo baaritaana lagu haya wax walba markay dhacaan waxa aragtaa qarax markuu xamar ka dhaco alxamdulillah ayaamaha qarax waa laga nasta Ilaahay noo soo celiyo waxa aan ugu dambeeyo aan rajeynayno waa qarax oo xamar maalin walba Ilaahay ka tuuna inuu qarax dhaco laakiin waxa aan la yaabka iyo maxaa la dhahaa aadka dadka ay u karaahsadeen waxa tahay in la yiraahdo qaraxi waa la yimaadaan hay'adaha amniga ay dhahaan baaritaana sameynayna baaritaana lagu haya maxay ahayd wixii dhacay way dhaceen baaritaana la haya baaritaankaas wixii ka soo baxay in aan dib loo helin ama laga yaabo baaritaanka in dadka lagu madadaaliyo lagu sii jeediyo oo la yiraahdo qaraxaasay dhacay saasoo u dhacay maxaa diida hadiiba la heli karo hadiiba run tahay inay fal al-shabaab u geystay maxaa diiday in maxay ahayd wax sugan oo la haayo oo cadeyn oo buuxdo in maxay ahayd la soo bandhigo taas waxay ku tusaysaa in wax badan oo isdabamarin ay jirto tan kaleetood waxaan rabaa inaan karbaash lama ilaabaan aan u dhiibo beesha aniga aan ka soo jeedo ayagana maalin maxay ahayd xilliga geerida Allah u naxariistay injineer Yariisow
intee gogol fidsadeen geel badan aruursadeen war xagee geelka u wadiin geel beelayaal geel weligiin ma arkin waxyaabo oo aad cuqdad ii geliyay ahayd waxaan u arkay wax oo lama arag lama maqala waayo ninkan nin dowladeedu ahaa shakhsi dowladeedu ahaa inta injineeriyisu aan aqaanay wuxuu ahaa wasiir wuxuu ahaa maxay ahayd gudoomiye gobol wuxuu soo maray afhayeen marka qof noocaas oo kale ah in qabiil loo tiriyo oo qabiilkiisa intay gogol dhigtaan ay maxaa la dhahaa waxaas wax fiican maaha waxaan leeyahay dad badan waa ceebayseen waana kaasa kule aniga maxay ahayd ra'yi ahaanteeda ka hadlaaya qofka iyo dhibsado iyaday u taalaan tan laakiin muhiimadda waxay tahay qaraxyada soo laalaabtay ee ka dhaca maxay ahayd magaalada muqdisho oo magaalo badweyn ah oo ay ku nool yihiin malaayiin qof sidee xal loogu heli karaa haddii gurigaaga aa og tahay inuu ku nool yahay qof dadka dilo ama qof maxaa la dhahaa aafo dadka dilo la shaqeeyo waxaa ku fiican in adiga intuu adiga ku dili lahaa in aad dadkaaga naftaadana ka badbaadisid dadka kaleetoodna aad ka badbaadisid gaar ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed oo aan arkay inay victim yihiin victim naftooda u yihiin oo awlaadooda u yihiin maxay ahayd ay u yihiin waayo waxaa dhacdo in hooyooyin badan oo magaalada ku nool wiilashooda maalin walba ayagoo al-shabaab loo tirinayo in tiirka la geeyo oo maxaa la dhahaa iskool bulisiyo lagu toogto niyadjab maa u dhiman uma dhinno laakiin asagana meequu soo dilay oo laga yaaba inuu soo dilay amaba maxay ahayd allahu aclam anyhow ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay marka hore u duceeyay dadkii ku dhintay qaraxaas uurkutaalada ku noqday ummadda Soomaaliyeed ee uurkutaalada ku noqday familku uu ka dhashay injineeriyiso gaar ahaan caruurtiisa in ilaahay uu u naxariisto ayagana maxaa la dhahaa insha Allah maxay ahayd kulay waalidkaaga markuu dhinto qof kuu buuxin kara booskiisa ma lahan waxa maxaa laga sugi karaa maxay ahayd hay'adaha ammaanka ama dowladdan hadda jirta ama dowladaha kale tood soo socdaan marka uu dhaco fal argagixisa fal dil dadka xamar jooga waxay dhahan falkan shabaab ma geysa mise shabaabow marka shabaab iyo shabaabow in la kala saaro iska fiicnaan lahayd aaday u fiicnaan lahayd aadayna muhiim u tahay in la ogaado meesha adiga lagaa dilay haddii aad tahay shaqaale dowladeed qofka ku dilaya inaad taqaanin haddii uu ku dilo argagixiso ama qoladan ay ku disho waa gooni inaad taqaanin haddii dad maxaa la dhahaa dana siyaasadeed ay isku diidan tihiin uu ku dilana in maxaa la dhahaa la caddayn karo haddii arrimo kaleetood aanooyin ama faldamiyadyo kaleetood uu dhacaayo qof kugu dilan inaa la ogaan karo intaasoo dhan waxaa lagu ogaan karaa hay-adaha garsoorka hay-adaha sharciga cadaalad in la helo dabagal la helo oo sax la baaro waxaa xagee ka yimideen falkan hadda marka laga hadlayo qaraxa gobolka banaadir qaabkii loo soo agaasimay gobolka banaadir oo la ogyahay sida ammaankiisa loo sugo sida dad isoo biimeeyey ay kusoo gudbeen halahaasoo dhan xayndaabkaas oo amniga lagu sugayo dhan ay soo gudbeen ay soo galeen hoolka shirka ka dhacay waa wax la yaab iyo anfariir leh sababtoo ah waa maxay ahayd waxaa meeshaas ku soo baxaayo sawir ah in maxay ahayd falkan uu ahaa fal dad badan ee kasoo wada shaqeeyeen fal xergag badan oo isku meelo badan xerka ku leh ha ahaada dad badan oo maxaa la dhahaa laga yaabo in injineerka cadaawad kala dhexaysay ha ahaada dad dhinaca maaliyadeed ay isku haysteen ha ahaadeen dad siyaasadoo isku diidanaya ha ahaadeen dhinacyo badanaa loo saarin karaa keliya al-shabaab keliya ma aha in targiga la saarto shakiyadaasna waxay ahayd in dowladda ee dadka ka maxay ahayd ay ka bixiso ay tiraahdo injineerka Allah u naxariistee dadkan asaga iyo maxaa la shaqaalihiisii gobolka banaadir waxaan u haynaa dadkan oo dilkaas falkan soo abaabulay fududeeyey kan qarxiyey kan fududeeyey oo soo gudbiyey albaabka kan la kala soo shaqeeyey intaba in maxaa la dhahaa xal loo heli lahaa mar kale waxaan idin leeyahay aniga laafka waa igu cusub yahay aniga laaf isma naqaano saaxiibna manihin intaan caawa ka arkaa igu filan waxaan idin leeyahay aan u wada duceyna dadka ku dhintay gobolka banaadir dadka gobolka banaadirna hal fariina u wadaa oo ah hooyo walba iyo aabbo walba way taqaanaa cunugeeda wuxuu u ku lug leeyahay haddaa adiga maanta gurigaaga aad ku haysatid dad qaraxya wado oo qaraxyada guriga sariirta hoosteeda ku qarsado ogow maanta markuu qof soo dilo beri adigaa maxay ahayd uu ku dilayaa amaba meesha qarax uu dhigaayo adigaa adoo maraya ku dhiman kartaa marka wiilkaaga badbaadi ka badbaadi dadka ummadda islaameedna ka badbaadi naftiisana u badbaadi adigana iska badbaadi hay-adaha ammaanka in lala shaqeeyo way fiican tahay haddii maxaa la dhahaa system laysku halayn karo oo nidaam loo mari karo laysku halayn karo uu jiro way fiicnaan lahayd aan u wada duceyna allah u naxariistay injineer Yariso iyo gruubkiisii
oo sidii xaqdarrada ah ku dhinteen oo cadaalad waayeen marka laga reebo markii falka dhacay dad badan oo maxay ahayd naxariis muujiyo allaha u naxariisto anaga dhan waa wada dhimanaynaa laakiin mowtul fajirka dadka ma jeclo haddii aa maanta degdeg ku dhimatid ama qarax ku dhimatid anaga waa naqaanaa maxay ahayd hore waxaan u naqaanaa in lays dilo soomaaliya laysku dilo aada laysku dilo hal mar in qarax weyn dhaco wax aada u weyn waayo hal mar hal fadhi hal daqiiqa gudaheed haw laysla wada dhaho waa wax maxay ahayd uurku taale ah saameyn doonto annaga dadka shacabka caadiga aada ula murgoonay kasoo qaad ka waran dadkii ehelkooda ay ku dhinteen meeshaas waalidiintu caruurtoodii bal ka waran waa naxdin waxaan la kulmay sanadkii hore xaflad lagu qabanayay amsterdam oo tacsi ahayd waxaan la kulmay gabadha maxay ahayd degmada cabdilcasiis guddoomiyaha ka ahayd walaasheed walaa markay iiga sheekaysay qaabka ay soomaaliya kusoo aaday iyo hamigeeda walaa aada u naxay aada u murgooday horan aqoon uma lahayn laakiin waxay ku tusaysaa qof walba oo nolosha rajo kale oo isdhaho tallaabooyin hore u qaad inuu helayo mid ka hor istaago oo noloshiisa soo gebagabeeyo waa rajaynayaa in maxay ahayd wax laga bedeli doono maxay ahayd waa baari doonaa wixii dhaca waa soo baari doonaa waa rajaynayaa in wax laga bedeli doono insha allah ama dowladdan gabagabada ay wax ka bedeli doonto ama dowladaha soo socdo ay liiska ku darsan doonaan inay maxaa la dhahaa balxad u yeelaan haddii fal dhaco fal dambiyeedkaasi dhaco la helo faahfaahin caddaysan qaabka ay wax u dhaceen marka ugu horeyso kadib la helo baaritaan dhaba iyadoon la dhihin waa la baarayaa maxay ahayd waa la baaraa inta la yiraahdo buugga laysku laabto lagu kala tago qof walba gurigiisa aado haddaa adig gurigiisa aado dadaa gurigooda dadkii maxay ahayd ka maqan yihiin ay ugu dhinteen 1 qofood wixii ku dhacay oo qaraxi soobe waa la baarayaa waa la baaray waa kaasaa marka musalsalkan qaraxyada insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu maxaa la dhahaa soomaalida kasoo gabagabeeyo oo maxay ahayd aan dib dambe la isugu laabanin waxaan rabay inaan dhaho inaan la hilmaamin dadka wanaagsan ee maalin walba naga dhimanayo ee u badan dhalinyarada marka qaraxyada xamar aan arko aada iyo aada waxyaabaha aadka uga nax waxay tahay mararka qaarkood ooyinteeda aysa u kala joogsan dadka ugu badan ee dhintay waa dad dhalinyaro ah dhowr iyo 20 jir ilaa 30 ilaa dhowr iyo 30 dad aan 40 gaarin ka yar 30 gaarin marka dadkaas oo dhan anaga naga wada dhinteen alxamdulillah waa la nasta maalmaha laakiin waxaan rajaynayaa waxaa ilaahay ka baryaa inuu qarax oo dhan la waayo waxaan rajaynayaa in cadaalad badan la helo cadaaladda maaha in aniga markaa dhinto garoon la ii dhiso injineer yariso allah u naxariistay dowladda soomaaliya garoonkii oo dhismihiisa socday aa loogu magac daray intaas kaliya uma baahna wuxuu u baahan yahay cadaalad wuxuu u baahan yahay dadkii falkan guracan argagaxa leh naxdinta leh soo agaasimay dadkii soo fududeeyey ee gudaha soo geliyey dadkii ka soo shaqeeyey silsiladaas meesha ee ka imaaday in hal sano hadda kasoo wareegatay in la helo silsiladaas haddii la helana waxaan hubaa oo inin sheega caawa in la heli doono soomaaliya xalkeeda waanba ogahay inaan la heli doono habeen wanaagsan idin leeyahay habeenkaa idin wacnaado aan u duceyno maxay ahayd walaalaheen qaraxaas ku dhinteen qof walba oo ka shaqeeya cadaaladda dad badan waxay u qaadan karaan fikrado qabiil iyo waxyaabahaas maskaxdooda kusoo dhacaan qabiilkaaga waa jeclaan kartaa it's up to you adaa xuru ah laakiin in damiirkaaga oo dhinto taasaa xumaan ah in damiirkaaga uu qabiilka salfado oo qabiilka dartiisa uu damiirkaaga u dhinto taas waxa waaye wax oo maxay ahayd oo aada niyad jab waaye dadka waxaa fiican inay niyadooda mar walba nadiif ahaato habeen wanaagsanaa idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu lifekii igu horeeyey iyo wixii iga qabsaday anaa maalin kale idinkaga sheekeyn doono anigoo life ahayn insha allah habeen wanaagsan kulligiin asxaabta kulli ku wada jirtan waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin sidaa ii dhiirigelisay asxaab badan caaw life soo gashay maxaa kugu dhacay markaa dhowr mar hawada ka baxa maa kusoo laabatid dadkii caawiyey waa idinkaga mahad celinayaa habeen wanaagsan kole ciidna way soo dhowdahay ciid wanaagsan idin dhaho